mooshinkan ay soo jeediyeen ilaa iyo 30 mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ku saabsanaa iswaafajinta xubnaha ay ku doonayeen in la mideeyo labada xilli ee doorasho ee baarlamaanka iyo madaxweynaha waxayna arrintaasi ku saabsan tahay in uu waqti badan iyo dhaqaale badan uu lumo inta u dhaxaysa labada doorasho waxayna mudanayaashaasi tala ahaan ay u soo jeediyeen in qodobka kontonaad ee dastuurka lagu saleeyo wax ka bedelka laguna kordhiyo farqada saddexaad oo dhigaysa in madaxweynaha koonfur galbeed oo la doortay 2018 muddada xilhayntiisana ay ku eg tahay 2024 ayadoona la filayo doorashada madaxweynaha in la qaban doono muddo 30 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinka soo jeediyay oo ka hadlaya arrinkaasi ama mooshin ku saabsan iswaafajinta xilliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo wax ka bedelid qodobka kontonaad ee dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya marka xigto biyo sacbaada loogu dhirgaa wax iskala weydaarsan waxa ka fiican wax isla socdo waanu aragnay waxaynu ku soo marnay dhibaato fara badan ayaanu ku soo marnay dibkii aad soo aragtay waxa ka fiican inaad ka gudubto cashar ka barato oo mataqaan hore u socota ka fiican waxay u baahan yihiin wada shaqeyn iyo isxoojin iyadoo hay'ad walba shaqadeeda loo deynayo laguna taageerayo taas loo xaqiijiyo waxa codsanayaan in la mideeyo xilliga ay jiraan labada hay'adood ee fulinta iyo sharci dejinta xaaladda dalkeena uu ku jirana waan ognahay inaan marka cidii aan dood ka qabin aanan la sii dheeraynin dooda oo aan codkii gallo intaasaan soo jeedin lahaa oo ka codsan lahaa saaxiibaday intaasi kadib waxa cod farataag ah lagu qaaday mooshinka ma jirin wax diiday amaba ka aamusay waxaana ansixiyay 87 mudane oo kooramka maanta uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Saciid Fiqi oo shirgudoominayay kulanka maanta ayaana ku dhawaaqay natiijada codeynta madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee la doortay 2018 waxay muddadiisa xilhaynta ee ku ekaan doonta dhamaadka muddada xilhaynta golaha wakiilada ee ku beegan 2024 ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doona 30 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo mooshinkaas waxaa taageeray 87 xildhibaan waxaa diiday eber xildhibaan waxa ka aamusay eber xildhibaan sidaas darteed mooshinkaas waa la ansixiyay markii uu soo ilaaday kulanka maanta ayaan mikrofoonka la dhax qaaday qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed si aan wax uga ogaano dareenkooda dowladda koonfur galbeed ay yihiin dhamaantood beeraley ah oo u baahan inay wax badan ay u qabsoonto waxa isku raacno anagoo kamid ah 30 xildhibaan marka wada tashi badan aan sameeysanay waxa isku raacnay in oo la mideeyo xilliyada xildhibaanka iyo madaxweynaha isla dhacaan marka alxamdulillah maanta marka la hor imaanay in sheekadoomiyahan oo naga saxiixay oo naga ogolaaday sidoo kale xildhibaanadana way naga ogolaadeen si waqtigii la soo maray ee ahaa in ay kala duwanaadaan madaxweynaha madaxweynaha iyo baarlamaanku aan ka soo barannay in ay ahaadeen caqabado badan oo xagga dhaqaalaha ah xagga waqtiga ah ayadoo aan ognahay mataqaana awoodaheena dhaqaale iyo midda mataqaana maamulba inay nagu yihiin qalabka xaggiisa iyo dhaqaalaha iyo hadii ilaahay ku roon yahay iyo waqtiguba inuu aad iyo aad u kooban yahay waxaan anagoo xildhibaanaha maanta aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka sida wanaagsan ee mooshinkii ay u soo mataqaana xeerka waafaqsanaa ay u keeneen xildhibaanada tirada xeerku ogol yahay ahaa tallaabadan maanta ay qaadeen xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa u muuqanaysa in wax badan ay ka bedeli doonto doorashooyinkii horay ugu dhici jiray dawlad goboleedka koonfur galbeed maxamed Serjuu Dalka TV Baydhabo